الله الرحمن الرحيم maanta waxaan isugu nimid anigoo ku hadlaya duqa magaalada Garowe shacabka reer Garowe iyo guud ahaan shacabka Puntland inaan alakan aydaad ka sheegno dastuurka loo sameeyay oo hadda loonkay oo dawladda ku meelgaarka Soomaaliya loogu talagalay kullama saxiixayaashii oo ka koobnaa madaxda siyaasadda Soomaaliyeed ay isku soo raaceen qolkii ugu dambeeyay ay isla saxiixeen Nairobi inaan horta markii ugu horeysa ayidno nuqulkaasi inuu noqdo kan ergada loo gudbin doono ilaa idankiisna ergadu ay haa ku codayn doonto waxa ayaamahan badnaa sidaan sheegnayba dastuurka effort badan baa la geliyay guddi madax bannaan baa soo qoray markii ugu dambeysayna madaxda siyaasadda Soomaaliyeed baa isku raacay marka in odayaal ku hadlaya afbeeleed iyo maamullo hoose oo maamulada gobollada iyo degmooyinku ay ayaamahan dambe caadisteen inay wax ka sheegaan shalay markii ugu dambeysayna gudoomiyaha gobolka Banaadir uu sheegay inuu kacdoon samayn doono laga soo horjeedo oo bulshada xamar u kicin doono arrinkaasi waxaan warnay inuu nasiib darro yahay sababtu waxa weeye hawl u taal asaga hadda maba aha hawshaani way soo dhammaatay siyaasiyiintii waaweynaa madaxweynihii federaalka ra'iisul wasaarihii ra'iisul baarlamaankii madaxweynihii Puntland galmudug elusuna wal jamaaca intaba isku soo waafaqeen halkaasi wax daldaloolaa ma lahayn odayaashii dhaqanka baa u fadhiya oo xulay ergadii ansixin lahayd in laga hordhaco oo daldalool loo yeelo nasiib daraan runtii u aragnay waxaan u aragnaa shaqo uusan lahayn inuu galay gudoomiyaha gobolka Banaadir gobolka Banaadir 91dii markii burburka Soomaaliya dhacay Soomaaliya ka kala qaxday hal beelaa ku hartay hal beelaa gudoomiyaha iyo ku-xigeenada Banaadirna haysta hal beelaa haysta degmooyinka Banaadir marka ayadoo ay saas tahay ayaa haddana dadka deegaanadan degani aysan hadal ka keenin ma jirto cid mucaarada ay caasimadda xamar inay noqoto iyadoo ay mudan tahay in laga qaado oo deegaamo kaga habboon ay jiraan haddana weli ma dhicin in colaad loo muujiyo marka kacdoonka uu sheegayo mudana tarsan waxaan aragnaa mid ka hor imaanaya geedi socodka road mapka oo uu ku carqaladaynayo uma aragno inuu caasimad ka hadlayo caasimaddii meesha ku orantay dastuurkii ku xusan tahay waxaan marka leenahay arrinkaasi ha ka laabto oo waxa weeye ha u daayiyo ummadda loo igmaday siyaasiyiinta ka sarreysay ergada qaban doonta haddii rabbi idmo sababtu waxa weeye wuxuu u muuqanayaa dadka ka soo horjeeda ma aha dadka ka soo horjeeda inay siyaasiyiinta waaweyn iyo xildhibaanada kale ku koobnaanayaan haddii la carqaladeeyo dastuurka iyo geedi socodka road mapka oo kacdoomo iyo mudaaharaadyo uu ka hor keeno iyadoo gobollada kaleba laga ayidi karo mudaaharaad lagu ayidi karo haddana qofka noocaa sameeyey wuxuu u muuqan doonaa qof ka soo horjeeda guud ahaan geedi socodka nabadda iyo road mapka marka maanta waxaan ahayd war-saxaafadeedkani inaan ku ayidno sida loo soo bandhigi doono haddii rabbi idmo inaanu diyaar u nahay iyo hadalladaas ayaamahan dambe gobolka Banaadir ka socda iyo afhayeenada beelaha hawiye oo shalay galab ka hadlayay idaacadda VOA-da waxaa khalad ah qof dhaqan sheeganaya oo umma Soomaaliyeed dhaqan u sheeganaya inuu beel ku abtirsado waxaa khalad ka sii weyn in idaacadda inta u yeerato qof magac beeleed ku hadlaya ay war weydiiso war Soomaaliyeed weydiiso war beeshiisa kaliya in la weydiiyo mudnayda war Soomaali u dhaxaysan ma mudna qof beel magaceed ku hadlaya in laga waristo maanta arrintaas intaas ahayd السلام عليكم ورحمة الله وبركاته